السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدية هاي أورا تاي وقت جي أورك أتكترتد حتى بقى هدية على مداني هذا سكو أركتد كديك تونو أما أجو إن أنا جاير نورش شيء أي حالس أكترتو على مداني بحين أقول كران مركب على مداها ويكلا دوينيهين لكن وحنا ربو حوا إن أديك هاي هذا أوركا إن أدوجتد أن كايا بحناي وما أركتو على أستامهني على مداني أنا حدد سكو أركتد in aad waqti walbo ka digtoonaatid loo baahan yahay ayaa ah astaamahani way kala duwan yihiin waa maaragtay astaamo dhanka cunuga la xiriira astaamo dhanka hooyada adiga hooyo ahaan kula xiriiro iyo intaasi ayay ka badan yihiin baa sideed astaamood oo maaragtay halkan in kula wadaagi doono fadlan ha ka iloowina channelka subscribe like share-ka haddana kusoo dhawaada barnaamijka urka ahaan haddaan ka hadlo urka sidiisba maaragtay astaamooyin kala duwan ayuu leeyahay astaamooyinkani waxay noqon karaan kuwa cunuga la xiriiro iyo kuwa hooyada la xiriiro laakiin muhiimadu waxa waaye hooyada markay uurka 3 bilood hore ay soo gasho ama aragtay ay ku jirto xilligan waxay dareemaysaa astaamooyin kala duwan ama sida Soomaalida oo naqaano waxa loo yaqaano walaca qad qalaad waxa loo yaqaano morning sickness sidiis wuxuu yahay marka waxyaalaha oo maaragtay astaamaha morning sickness ka kamida waxa waaye hooyadii inay isku aragto matag labo madax xanuun hoostaas iyo xanuunaysa iyo maaragtay intaas laakiin astaamahaasi hadii ay maaragtay hooyadii astaamo ka duwan ay aragto waxaad ogaataa in aad maaragtay cunugaaga uu khatar uu ku jiro noloshiisa marka dhaqdhaqaaqa cunuga iyo maaragtay gaar ahaan cunugu dareemitaankiisa iyo ciyaaritaankiisa oo halkaas minka uu ku ciyaarayo ama ay bilaabanaysa ama waqtiga ay bilaabanayso waxa waaye wixii 5 bilood ka bil hadii aad maaragtay astaamooyin kale oo nooc kale aad aragtid hadaba videoga dhamayso waad fahmi doontaa waxa ka hadlahayo oo idil astaamahani waxay yihiin iyo intaas in ka badan hadda ugu dagaalama marka astaamaha calaamada koowaad ee hooyada isku arkayso waxa kamid ah ama cunuga dhankiis ka imaanayo waxa waaye astaanta koowaad oo khatarta ah cunugaaga khatar gelin karta ama dangerka ku horseedi karta waxa waaye cunugii wadnihii wadna garaaciyo idil haduu jiro cunuga intuu uu maaragtay wadna garaacigiisu taagayahay cunugaasi noloshiisa iyo caafimaadkiisa waa tam waa okay laakiin haduu fetal heartbeat waxa loo yaqaan ama wadna garaac cunuga oo lumo ogow in ay maaragtay adiga hooyo ahaan iyo cunugaaga aad khatar aad ku jirtiin wadna garaaca cunuga wuxuu bilowdaa wixii ka bilowdo 10 isbuuc markii ay hooyada ku jirto taasi waa 2 bilood ayuu maaragtay cunugii markuu da ahaan uu joogo oo caloosh minka hooyadiisa uu ku jiro ayaa maaragtay wadna garaaca Ilaahay ku beeraya marka wadna garaacani waa nolosha qofku waxa uu ku taagan yahay laakiin hadii wadna garaacani uu ka lumo cunugii waxa dhacaysa cunugii inuu caloosh uu ku dhex dhintay waxa loo yaqaan intrauterine fetal death ama IUDs ama IUFD marka waxaad ogaataa astaantan ka digtoono cunugaaga wadna garaaciisa sid ku ogaani kartaa ama maxaa ogaani kara cunuga wadna garaaciisa waxa lagu ogaani karo waxa waaye iskaanka oo waqti walba in aad samaysid lagaaga baahan yahay 9 bilood aad uurka leedahay in aad 3 mar aad ka samaysid lagaaga baahan yahay astaanta labaad waa maxay marka astaanta labaad waxa waaye hooyadii hadii wax loo yaqaano dhiiga isku aragto dhiig furasho ay hoos dhanka hoose ay isku aragto dhiig furashadani way kala duwan tahay dhiig furasho qaarkood oo maaragtay noloshaadii halis gelinaya ayaa jirta dhiig hooyinka qaarkood waxay isku arkaan dhiig yar oo maaragtay dhanka hoose kala soo ay isku arkaan oo dhanka hoose ah marka dhiigani marka mostly wuxuu la xiriiraa implantationka abuuritaanka cunuga uu darbiga minka uu isku dhijinayo kadib markii bacrimintii ay dhacday ayaa loo yaqaanaa implantationka sidiisba waxa uu ku sheegayaa cunugii abuuritaankiisii ama dhiigani haddaad isku aragtid waxa uu ka turjumayaa ama uu ku sheegayaa in maaragtay cunugii abuuritaankiisii uu bilowday oo maaragtay uu hooshii ay fertilizationkii uu dhacay implantationkina oo bilowday oo maaragtay dhiigasi astaan ahaan wuxuu ku sheegayaa ayaa sidaas ah hadii aad isku aragtid marka in aad waxa loo yaqaan bleedingka ama dhiig furashada oo ahaan maaragtay uurna aad tahay maaragtay sidoo kalena aad implantationkina aad ka soo gudubtay waqtigii maaragtay bacrimintii iyo xaaladahaasi oo idil aad soo gudubtay waa maxay marka dhiigani
astaan ahaan wuxuu kuu sheegi karo waa maxay. waxaa lagaaga baahan yahay inaad ogaatid kow, xilli walba aad uurka ku jirtid haddaad dhiigga aad isku aragtid oodna implantationkani aad soo dhaaftay, waxaa lagaa rabaa in aad maskaxdaadii inaad ka fikirtid dhiiggani waa maxay, intuu ka yimaaday, maxaa khatar ah noloshaadii uu kusoo gudboonooni karaa ama uu kuu keeni karaa. sababtoo ah dhiig furashada waa halis waqtiga aad uurka aad ku jirtid. waxa uu noqoni karaa miscarriage-ka ama waxa loo yaqaano diliinka. sidoo kale waxa uu noqoni karaa dhiig furashahani aad dhiiggaasi hoos kaa imaanaya aad isku arki kartid, wuxuu noqoni karaa waxa loo yaqaano APH-ka. APH-ka sidiisna waxaa waaye antepartum maaragtay hemorrhage-ka waxa loo yaqaano. waxyaalahani idil halis bay cunugaagi iyo adigaba ay kugu yihiin ka digtoonow. astaanta saddexaad waxaa waaye xanuun oo dhankaasi oo severe cramping loo yaqaano, xanuun oo dhanka hoose ah maaragtay hoostaasi oo idil maaragtay abdomenki oo idil ku xanuunayo, dhanka miskaha oo maaragtay ilaa iyo abdomenka hoos qaska maaragtay kaadagaleenka korkiisa aad ka dareemaysid. waxyaalahani oo idil haddii kula soo siyaadaan ogow in aad noloshaadii uu halis ay gelani karto, cunugaagan uu halis uu ku jiro. sababta ah severe crampingka oo xilliga uurka wuxuu noqoni karaa waxyaalooyin badan oo kala duwan. infection kugu raagay oo zaaid buu noqoni karaa oo cunugaaga maaragtay halis gaarsiini kara. sidoo kale wuxuu noqoni karaa dhibaatooyin kale oo contraction inuu kugu bilowday ayaa dhici karto. marka waxaani oo idil waxaa lagaaga baahan yahay inaad ka digtoonaatid. astaanta afraad waxaa waaye waxa loo yaqaana severe back painka. severe back painka waxaa waaye dhabar xanuunka oo zaaidka ah. dhabar xanuunkani wuxuu noqoni karaa waxyaalooyin badan ayaa keeni kara. marka waxyaalaha kamid keena waxaa waaye haddii uu infectionku kugu raago dhabar xanuunkani waad isku arkaysaa. sidoo kale haddii maaragtay dhabar xanuunkani waqti badan uu qaatay oo zaaidna uu yahay oo dhabarkii aad ka jiifani karin, aad hool aad ka qabsani karin, waxba aad ka qabsani karin, ogow haddaba in maaragtay dhibaatadani ay noqoni karto dhibaatooyin oo dhanka kaadagaleenkaaga imaanayahayo, maaragtay kaadagaleenkaaga ay dhibaato haysato. sidoo kale maaragtay dhanka kelyahaaga in kaaga imaanayahayn oo dhibaatooyin oo dhanka kelyaha ay kula soo dariseen. marka waqti walba xanuumadan astaamahan aan soo sheegay idil haddaad isku aragtid waxaa lagaaga baahan yahay dhakhtarkaaga sida ugu dhaqsiyaha badan in aad la kulantid oo maaragtay sidii next stepkii wixii laga qaban lahaa lagu sheego. astaanta kale waxaa waaye maaragtay xilliga uurka noloshaadii nolosha cunugaba khatar gelin kara waxaa waaye waxa loo yaqaano unusual discharge-ka ama dhacaan hoose oo maaragtay markii hore aad isku arki jirin, ama wasaq oo dhanka hoose ah oo waqtigii hore aad isku arki jirin laakiin hadda kugu bilowday oo maaragtay noloshaada khatar dhibaato badan u keeni karo. marka dhacaanka caadiga ah gabadha waxaa laga rabaa oo xilliga uurka markii ay ku jirto inuu noqdo dhacaan cad oo yaro white ah. kuwataa astaanta koowaad oo dhacaankaasi la xiriirta. waxyaalaha lagu fahmi karo dhacaankaasi lagu gorni karo oo xilliga uurka markuu normalka uu yahay dhacaanka hoose. arrinta labaad aad ku ogaani kartid dhacaankaaga in uu okay uu yahay oo dhanka hoose ah waxaa waaye wax shiira ma lahan dhacaanka xilliga uurka. laakiinse dhacaankani haddii uu isu bedelo yellow ama cagaar inuu isu bedelo ama green inuu isu bedelo, dadka maaragtay kala fahmayo, oona shiirna uu leeyahay, oona maaragtay xanuunna uu la jiro, waxaa lagaaga baahan yahay waqti walba in aad dhakhtarkaada sida ugu dhaqsiyaha badan aad la kulantid oo laguu sheega waxa socdo oo maaragtay dhibka jirkaaga ka socdo. maadaama haddii aad sidaa isku fiirsatid cunugii in uu noloshiisa khatar gasho ayaa laga yaabaa. astaanta kale waxaa waaye cunugii haddii uu wax dhaqdhaqaaqo idil uu sameynahaynin. tani waxay kuu sheegaysaa cunugaaga haddii uu dhaqdhaqaaqiisa uu yaraado, waxa ay kuu sheegaysaa in maaragtay dhibaato dhanka cunuga ah ay haysato cunugii, mise dhalaankii in maaragtay dhibaatooyin badan ay la soo siyaaday. waxyaalaha lagaaga baahan yahay waxaa waaye marka haddii aad cunugaaga dhaqdhaqaaqiisa aad dareemeynin, hal maalin aad maaragtay waxba dhaqdhaqaaqa aad dareemin oo maaragtay cunugii kusoo haraantinaya haraantidii iyo wixii oo idil aad dareemihaynin oo cunugii maaragtay inuu socdo calooshii minkii oo wax dhaqdhaqaaqo idil uu sameynaynin, haddaba ka digtoonow sida ugu dhaqsiyaha badan dhakhtarkaaga la kulan, iskaan ha lagu saaro, ha la ogaado dhibaatada meesha ka socoto. ugu dambeynta waxaa waaye cunugaaga haddii uu maaragtay ama hooyo ahaan haddii aad adiga isku aragtay qandho badan ama xumaad zaaid ah haddaad isku aragtay ka digtoonow, waxa ay ku keenayaan maaragtay qandhadani in ay cunugaaga noloshiisa ay halis ay geliso. asxaabe waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanidka barnaamijka. fadlan meel walbaad joogtiin ha ka iloowina channelka subscribe, like and share-ka.
waxaan idin rajaynayaa sidaa iyo nabadgelyo.